Asalaamu calaykum asxaabta dhammaan waa salaamintiin meel kastoo aad dunida ka joogtaan. Maanta waxaan idin hayaa application. Applicationka meel kale ha ka raadin, waxaad ka raadisaa Play Store-ka. Okay, yaanan ku horumarin. WhatsApp-kan aad u jeedo waxaa la soo dhigay statuskaas ma jirto qaab micnaha loo soo degsado ama loo soo download gareysto ma jirto. Waad fiirsanay waan ka soconay, balse maanta waxaa ku haya application aad ku soo degsan karto oo xaqiiq oo dhab ah. Haddaan ku tusaa applicationka asigan meel kale ka sii raadin, waa WhatsApp lebis asigan waxaana ku qoran status server for WhatsApp. Applicationka waa kan. Applicationkan waxaa ka helay Play Store-ka ama Google-ka waa ka helay. Anlag waxaa ka soo degsaday Play Store-ka ka soo degsaday. Waa application oo ahantii ku cajib gelin doono waan arki doontaa. Okay, hore applicationka furaa wuxuu leeyahay applicationka markaa furo wuxuu leeyahay calaamad wuxuu ku soo saaraa micnaha 3 oo tir ah ku soo saaraa 3 tir 1 2 ama 3 ku dar karaa, laakiin ana wuxuu isu saar 2 dadka qaar wuxuu soo saaraa 3 ana wuxuu isu saar marka 2. application koomka furayo oo mobilka uu ku cusub yahay wuxuu ku dhahaa koow inta ka dhex fur WhatsApp-ka. Application gudihiisa ka dhex furay hoos waxa ku qoran open WhatsApp, meesha ku qoran tahay open WhatsApp meesha ku dhufanay kadib toos wuxuu ku geenaa WhatsApp-ka. WhatsApp-ka ku geeyo statusyada dhan waxa rid aad fiirsanay marka fiirsid kadib asina ku sii save gareynaa ka fiirsato hore ku save gareynaa. Application magaas save oo ku dhaho aad fiirsid waa ka bixi application-ka baaga dhig gadaal oo laabanay wuxuu si toos oo ku celinaa application-ki. waxa arkaysaa statuska aad fiirsatay oo dhan ma ku soo taxaa kadib maxaa sameynaa maxaa sameynay. Okay, aniga iska soo qaado aniga waxaa sameynaa marka asaga ii sheega download aan dhahnaa meesha download calaamad download oo leeyahay haddaadan download dhihin gallery ma ku galaayo midas la soco. download dhaha wuxuu ii galaa gallery meesha aad ka fiirsado muuqaalada oo mobilkeyga oo ii dhax galaa download aa leeyahay. Marka aan ka hor dhicin oo horeen aan galo statuska server for WhatsApp waa dhax galay qaabka aan u sameynaa ilaa oo kaliya. mid kale application-ka koomka furaysid wuxuu ku soo qoraa sida ku sheegay 1 iyo 2 hoos ka furay WhatsApp-ka, laakiin markaad isticmaasho ama aad tijaabiso wuxuu ku soo saaraa mar walba aad gashid shaashad koowaad ku soo korayso waxa way statusyada aad soo download gareysatay ama oo meesha aad soo gashtay oo ku soo saaraa. waxaana taa ujeedo waa application status oo aan tijaab ahaan u soo tijaabiyay. marka statuska halkan oo ku keena meesha waxa ku qoran save waxyaalaha aad save gareysatay waa kan koow micnaha download aad soo download ka save oo ku gala save ko galo gudahan oo ku jira gallery oo ku jira. marka ana had waxa ka furaa WhatsApp-ka mar walba marka isticmaasho ugu horeen marka isticmaasho mar walba aad soo gashid wuxuu ku saaraa geeska meesha calaamadan ku qoran WhatsApp-ka meesha WhatsApp-ka soo galay oo ku dhuftay WhatsApp-ka si toos ii keena marka from Meta. Halkan WhatsApp-ki qayb statuska taga statusyada waa kuwana statuska aan rabo aad daawana statuska ku dhufanaa waa fiirsanaa bis ilaa oo ka dhamaado. status ko dhamaado kadib uu ii save yahay uu save gareysmaa. waa ka inta 2 status ay saaran 2 status waa ka waa daawaday marka dib oo laabanaa gadaal oo laabanaa recently waa kan application oo ii soo galay oo ku jira adaa arkaysa muuqaalkiisa kadib download ku qoran waxa la download asla ku dhufaa isla muuqaalkii ay klik ku siinaa. marka klik ku siiyo waxa ii soo qoraa download soo qoraa am shaashada uu soo weyneenaa kadib calaamad download oo hoos u dageyso waa taqaanaa calaamada soo dhufinay oo ku soo qoraa save successful waa save gareysatay. Okay yaa leeyahay kadib gallery ka dhex fiirnaa ama save kan ay ka dhex fiirinaysaa
engaging. Mid kaleete halkan wuxuu kuu qoray the status files will be deleted 24 hours after published. Please download and watch on saved page. ingiriis si fiican ugu fiicni, mararka qaar waa iska jajabsadaa, balse haddii aan fasiro waxay noqonaysaa status file-yada oo halkan oo kugu jira micnaha waxaad delete doontaa uu ku dhahay 24 saac kadib aad delete doontaa. 24 saac kadib aad delete doontaa. Wuxuu ku dhahay marka fadlan soo download gareyso ama daabo qaybta saved ka dhigo micnaha. Haddii aadan soo download gareysan 24 saac kadib maxaa dhacayo waa delete kartaa, laakiin hadda anigu ma delete kari sababtoo ah 24 saac ma ku soo wareegin. 24 saac ku soo wareeg kadib aad delete karaa. Okay, mid kale status kasta oo hore ka soo dhaco oo status micnaha qofka soo saarto isla markiiba hore ka soo galaa adoo amrin oo aad gudaha gelin oo micnaha soo gelin ama soo daawanin, isla markii hore ka soo galaa adiga waxaa leedahay bis download oo baxo gallery tagaa. marka gallery raadinaa gallery markaa ku dhufto ko aa soo degsaday aa ka dhex fiirnaa muuqaalkiisa uu ka dhex arkay muuqaalkiisa. aniga muhiim ah inaan ku tusiyo muuqaalkii aad meesha ka dhex aragtay aa meesha ka dhex arkaysaa. asxaabta aad iyo aad ay u mahadsantihiin daawashada aad daawateen. fadlan